السلام عليكم أصحابتي إذا سود دواذا ملك استأدونك أكا جوكتان انتي يقول عسوب ماشان وحافظة إذا انتي هورا إلو جوكتان ويقرانيسا ناشان وحاواي نصرة نيروبي نصرة جاردن نيروبي واي أصحابتي إذا ما أنتم حاواي مقالكم مصابسنين حافظة أنا موحكا شاقو هالكاس دورة إذا كاقا موقتو أما ديقاقت سيقولها نوري رقويقا أصحابي وحربا maanta inaa idinla wadaago calaamadaha ay leeyihiin dadka xaasidiinta qaar ka mid ah inta aan la kulmay waa laba calaamadood aan dhihi karaa dadka xaasidka aan nolosheyda soo maray aan soo arkay mid waa doqon xaasid midna waa danaysta xaasid yacni qof mid doqon waayo waxaan ka wadaa wax ay xaasid kugu tahay ama ay xaasid u tahay even ayada ma garanayso bis wixii dhibsanay un adiga inaad waxa aad rabtid aad heshid horumar inaad gaartid wax un inay kugu hagaagaan ee qofkaas diidan tahay wax yacni oo hadaa waxa weysidna ayada wax ma ka helayso xaasid kala jiro nooc kale oo kaba soo qaad qof tartan kugula jiro oo rabin yacni inaad ka hormartid oo raba inaad ka hooseysid kaas yacni waxbuu ku diideen wixii asaga isla rabo laakiin kan doqonka waa xaasid ogoleen totalba inaad wax heshid asagana isku madayaayo oo waxaad sameynaysid inuu sameysto asaga isku madayaayo adigana kuuma ogolo tusaale waxaa rabtaa inaad maanta gaari baratid oo aad leysinka qaadatid waxay saaxiib la tahay gabar ama islaam baa diris la tahay waxay ogtahay inaad dadaaleysid oo gaari baranaysid maxay jeclaanaysaa inaadan baran inaadan helin yacni inta tabarteeda waxay isku dayaysaa inay kaa weeciso wixii si un ku carqaladeyso ama haba ku habaaraan qaarkood oo ama niyad xumo un adiga kuula imaadaano si ku qasi karana ku qasaano qofkaas oo kale waxa la doqon xaasid nooca labaad ku soo haray nooca labaad waa danaysta xaasid uu jiraa because waxa jiro inta badan horta xaasid oo dhanba waa dadka aadka yacni dadka dhowdhow ee xaasidiinta u badan qaraabadu kale ama dariska kugu hareereysan ama mataqaanaa saaxiibkaaga oo kale ama saaxiibada kugu dhow kuwaas xaasidiinta u badan caadiyan doqon danaysta xaasidka maxaa waaye qofkan wuxuu arkayaa fursad adiga dhan wuxuu ku haystaa fursad wuxuu isku day inuu kugu danaysto waxa adiga rabtid oo dhan uu ku xumeynaa si asaga uu dantiisa kugu gaaro wuxuu isku dayayaa inuu adiga yacni uu الحق مقرب لو أديمي نوعا حاسد كأه si kastaba wuxuu isku dayay inuu jaranjar ka dhigto meel ku gaaro wuxuu ku tusinayaa kalgacayl fara badan wuxuu iskaga ka dhigaa qof qariib ku dhow si uu yacni aadan uga fakanin noocan xanuunada dadku dhacay isla aniga mar walba wuxuu rabaa adigu ku kontrolo wuxuu iskaga ka dhigaa qof jixinjix ku haayo ku dhow wuxuu marka isku dayay waxa haysatay inuu ka qaato inuu ku isticmaalo inuu kula noolaado hadaa guri leedahay gurigaaga ku dhex noolaado suu raba ka yeesho adigu noloshaada ku dhex jiro wuxuu isku dayayaa meeshuu yacni u arko inaa wanaag ama wax kaaga soo galayaan inuu kaa celiyo mostly kalgacayl uu ku tusinayaa wuxuu iskaga ka dhigaa qof uu ku jecel ama walaalka ama saaxiibad kugu dhaarato kugu dhimanto kaba soo qaad imtixaan leedahay oo kalenta wuxuu isku dayay og inaa imtixaankaas leedahay inay yacni ku maaweeliso iskaga ka dhigto inay kuu baahan tahay ama uu kuu baahan yahay oo adig yacni kaaga dhigo waxaaga dantaada dhan inuu ka dhigo basiid oo asaga muhiim iskaga ka dhigo qofkaasna waa xaasid jecel inuu dadka curyaamiyo marka waxaa leeyahay xaasidka naftiisa mar walba xaasid ku yahay muligaana ma arkaysid qof qalbigiis wax un xaasidnimaa ku jirto oo heer gaaray ama wax qabsaday ilaahay qulubtaa noo nadiifiyo dadkaasna ha la iska ilaaliyo